السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا نعيم تريق صباح وناكسن ميل كستا دنيا كجوجتان حتى هبين كوت هاينا هبين وناكسن لما انتين خير باني رجيني إن شاء الله حاني رجيني وقت بروح بدنا وفرحسن وحنو سوق الساق والصبح هوري ماما مليونيتا أو كل دقين محمد بسكوت ورش محمد بسكوت 24 hours وي هبارسا مع مليون ما أنا كستو وي هبارسا مع مليون محمد بسكوت محل لقصية مع مليون maxaa laga siiyaa way u habaarsa muxuu ka sitaa maxaa ka galay miye xukuntaa yaa maxaa daba dhigay muxuu yahay riisinka ay u daba ordaysaa maxamed buskut maama milyan maxaa maxamed buskut laga siiyaa anu ma garan karo wallaahi ma garan karo wax laga siiyo ma garan karo way u habaarsa waxay leeyahay ajaladii sheekha dhulka dhig ajaladaha sheekha waxa haysta youtuberada oo dhan baa haysta uga buuxda maama Soomaali baa iyadoo ay tamaysaa uga buuxda iyadoo dhulka ha dhigto kuwan kale ugu badan baa haysta iyagoo dhulka dhigaan laakiin mush inaad ku soo jeestid maxamed buskut ma aha maxamed buskut inaad habaartid wiil caafimaad qab inaad habaartid oo tiraahdid kasal Allah kugu rido waa ceeb waxaas qofna lama habaaro qofka dad xaq u lahayn adigu kugu soo noqonaya wallahi mar qof aad xaq u lahayn maxaad ku habaari 24 hours ما مليون حاجة صفر سطو محمد بسكوت كده جنتها وين محمد بسكوت كده جنتها وورني ما مليون محمد بسكوت يعني لقوا في السنة ما مليون محمد بسكوت يعني لقوا في السنة because of ما محمد بسكوت مرنا ما لصها الله ما أسوي جوابه لكن سي أنا واحد في ليا أرتا واحد قرصان بسكو هايستان بدون كلام أرد ضد هايستو أنت مقرن الساعي أنا واحد اسكو هايستان لكرني لكن واحد اسكو هايستان وواحد iyaga oo qarsoon maxamed buskut waxay maamulin kugu haysato adaa sheegi doona waxay tiri sawirada qaaqaawan buu soo qaataatay ugu soo dhajiya sheekha waa iyadoo qaawan bay sheegaysaa oo xina madaxa marsanaysa iyadoo qaawan daadaa iskari maamulin adoo qaawan youtube-ka haddii lagu soo qaatana adaa iskugu talagalay adoo qaawan iskeentay haddii lagu sagaal sawir lagu soo dhajiyo adaa iskale laakiin waxaan ku sheegay maamuliyune youtuberada oo dhan dad bay ku dhagan yihiin 60 kaba dad bay ka daba shaqeeyaan 60 kaba dad bay ka daba ganacsadaan 60 kaba dad bay ku dhagan yihiin 60 kaba meelahaas ay ugaarsanayaan 60 kaba Facebook ga dhex taagan yihiin 60 kaba waxay arkaan bay soo qaadanayaan marka maxamed buskut maxaa ka duway dadkan waxay arkaan ba soo qaadanaya wax ka sheegaya yaa mise adigu qof allaaliyo qofka shaashadaada qabata iskaga dhigaysa ka leexa wiilka ka leexa maamuliyune wiilka ka xisho dadka فيلمada social media la dhex joogto jooji waxna waa sax ayaba waxna waa kharibaya waxna waa sax waxna waa kharibaysa laakiin jooji waxna sax laakiin waxba kharibay bilaadanka wala aan laga wada helin intaas oo dhan laakiin aan waxaan ku leeyahay jooji fidmada youtube ka dhex wid u sheeg dadkan sheekh haysta imaam Soomaaliya kamid tahay inay sheekha ajaladiisa u dajiyaan u sheeg dadka laakiin maxamed buskut ka leexa maxamed buskut maamuliyuna xaabus ka leexo xaabus kulaadu waxa ku sheegaya maamuliyun adii maamuliyun ka dhaxeeyay inaad noo sheegtid adii maamuliyun waxa inaga dhaxeeyay inaad noo sheegtid waa maamuliyun waxa ku haysta dad kale oo may qabsato taas inaad noo sheegtid barajini adii maamuliyun waxa inaga dhaxeeyay teeda kale waxaan rabaa inaan ku daro maxaa ilaahay waryaadeen ummadda Soomaaliyeed wallahi horta waa musiibo waxa weeyaan qof moobil loo dilay waa musiibo inan baa biljan lagu dilay moobil baa loo dilay miskiinadeena soo tahriibtay oo intaas balan soo martay waad garanaysaa qof markuu tahriibo reerkoodu way saacidaan magafiye maqada qabsada mid kasta wuxuu doonayaa lacag gooni in la siiyo ayadoo waxa soo dhan laga soo bixiyay oo biljan soo gashay marka islahayd waadiga hadda baradii aad doonayso yimid marka islahayd hadda wax qabso marka islahayd hadda shaqayso marka islahayd reerkiini hadda saacid musiibo ordaysa Allah soo diray moobil baan soo looga soo dhigay waxa la yiri moobil bay ka doonatay meel moobilada deen lagu soo qaato moobilka bay badna lacagtii bixisay badna waxay rabtay inay yar bixiso afka meena galay inaan ba u yeertay Soomaaliya waxay tirkaale walaal saacid uu yimid soo gaarigiisa wata afkii uu ka saaciday moobilka markay soo qaadatay ayuu gaariga marka uu ku gaariga soo kar ayuu gaariga intaan soo karin ba ayuu gaariga ku dhuftay moobilkina hor uga sii qaatay ayadayna wuu jiray warin ma dareeya dadka noocaas ayaa Soomaali ku jira laakiin waxay tahay su'aasha meesha taala qofku ma qof caadi ah qofka moobilka iyo qofku moobilku
qofka kala qiimo badan yahay yani moobilka uu la qiimo badan yahay qofkaasi muxuu reebaya ilma adeeraya qofkaasi waxba reebi maayo war dadka noocaas oo kale cilaaja lagu guro ilma adeera dadka noocaas oo kale ayaan isku dhex eegan dadka noocaas oo kale cilaaja lagu guro dadka noocaas oo kale jeelalka lagu guro sababtoo ah dadkaas dadka dilaya ee moobil qofkaas siisanaya wallaahi wuxuu reebaya anigu ma garanayo umana aniga ilmana ah inay wax reebayaan teeda kale dadka noocan maxay yihiin dadka maana dad xalaal ku dhashay ahayn dadkana dad maana ahayn dad xalaal ku soo koray dadka waxaa sameynaya maxay yihiin war moobil muxuu yahay war ninku han yaraayo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed musiibo maxaa adduunka joogta dadkaas yurubta jooga kuwa ay kenya jooga waxay sameeyaan markuu ninkooda xabaayo bangiyada jabsadaano lacag ciida ka badan ay soo xadaan oo weligood xitaa hadday jeel galaan reerkooda ku noolaado laakiin Soomaali u dilaayo qof moobil inagaa leen arkaa laakiin waxaan u sheegaya dadka dilaya ka waantooba laakiin ninka inanta dilay adduuni aakhir wuu hoogay waliba aakhir wuu hoogay qof markaa dishiya ka saamaxay allun baa ka saamaxi kara allana ma saamaxa dhiigga islaamka waxaan u sheegayaa dadka waxaa sameynaya inaad inaga qabataan dadka waxaa sameynaya inaad iska dhex qabto dadka noocaasa qof walba qofkaaga waad garanaysaa inuu caqli yar yahay inuu caqli weyn yahay qofkaaga hadaad ogtahay inuu muq yahay qofkaaga hadaad ogtahay inuu maran yahay qofkaaga hadaad ogtahay dad waxaa jira maafiya iyo haddana caqli badan qofkaaga hadaad ogtahay inaan qof caqli badan ahayn qofkaaga hadaad ogtahay qof dhag weyna oo maran oo wixii doono lagu shuban karo inuu yahay qofkaaga qabso jeelka majnuun ku dhex rido ama ilaaj ku dhex rido adaa yaqaana laakiin waxaan ii sheegaya dadka waalwaalan dhalayow sida inanka inanta ku dhuftay sida ninkan ku dhuftay inanta bahalka gaariga ku dhuftay ee moobilka u dilay iimaanka laga qaad dadka dhalay waxaan u sheegay inay jeel majnuun ku ritaan ama loo dilaba ila nafku goostay ama nafku gooyay ama loo dilo ama jeel majnuun lagu rido anu intaas aan idin sheegay laakiin waxaan idin sheegay dadka dilaya inaan dadka lagu fiirsan wallahi saasay sheegay because of birina dadka inta hadhabay dilayaan marka dadka inaan lagu fiirsan baan rajeynaya insha Allah dadka dhalay waxaan rajeynayaa inay jeel majnuun ku ridan doonaan dadkooda saa ayaga dhalay aan lagu fiirsanin because of waxay reebayaan ma jiro caruuraha yar bay dilayaan dumarkay dahabka ka furnayaan oo dilayaan hooyooyinkay dilayaan nimankay dilayaan hubka sidanin warnay waxa la iska qabto anigu waxaan nii soo jeedinayaa dadka dhalayo dadka waalwaalan dhalayo dadkiina waa taqaaniin odhanin masjid buu ku jiray dadkiina dadka ka qabsada oo qof walba waa taqaanaa dad qof waalan dhashay dad qof miyir qaba dhashay dadka ka qabsada dadka dilaya oo waxaan u sheegayaa dadka dhalay ninkan xunka ah ee gabadha lugta ka jibiyay Muqdisho waligay lagama yaabo inaan ka daba haro because of waxa tahay wuxuush baa tahay wuxuush dunida la keenay alla ku sii qaadi waxaan u sheegay dadkii dhalay waxaan u sheegay dawladda sharafta leh ee Muqdisho ka talisa ninka ay la soo qabto horta xilka in laga xayuubiyo sababtoo ah sumcadiini ayaabay ay sharaf dhac ku tahay ninka in la soo qabto oo sharciga la horkeeno sharciga muu marinay sanad buu xidhnaahay isaguna qof dhan buu fadhiisiyo sariir u saaranay gabadhan buu ku ciyaaray mustaqbalkeedii ninka xunka ay la soo qabto ninka in sharciga la horkeeno ninka in lugta laga jabiyo asagana anigu waayo qof walba waxa la yiri wuxuu geysto oo ha lagu qaado ninka la soo qabto war ninka la soo qabto reer Muqdisho war ninka la soo qabto war ninka lugta laga jabiyo war ninka sharciga hal marsiyo war anigu inta idin sheegay wallahi ninka sharciga hal marsiyo war ninka ayaan laga daba harin cidna reebi maayo tu kale u siraya markaas uu guursanay markaas ayaduna saas kale u galaya marka ninka intaan dadka dilin la soo qabto ninka intaan dadka dilin la soo qabto ninka lugta laga jabiyo isagana xabad lagu dhufto oo lugta lagaga dhufto saasaga geystay war ninka ayaa la eeganin war dawladan la xabaana ilaalinaya war ma xirta ninkan inuu ilaaliyo dadka kale soo dilo war maanta daman xaqo idinku ku soo jeesanaya waxaan nii sheegayaa ninka inaad iska qabataan ninka inaad sharciga hormarsiisaan waxaan kaloo idin sheegayaa dawladba alla idin ka dhigay inaan taayir haday ka mato iyo hadaanay ka man labadaba horta Allah u haya laakiin Allah waxaan uga baryaa insha Allah inay cagaheeda ku istaagto laakiin qof intaas oo qalin mara waa iska garanaysaa wallahi dib weeyaan inuu istaago laakiin Allah waxba kuma aha laakiin waxaan u sheegay dawladda inay saacidaan nafta haday ka mato iyo hadaanay ka manba in wax loo qabto
in la siiyo lacag ay adduunka inta noosha ay ku noolaato, in shaqaale loo qabto maadaama hooyo lahayn, in inankeeda yar yaa iyada shaqaalaha iyo loo qabto, ama Turkiga ha joogto ama Muqdisho ha kusoo noqotay. laakiin weli waxaan leeyahay Muqdisho yaani kusoo noqonin because of Muqdisho waxay ku xasuusanaysaa Muqdisho murugo, waxay ku xasuusanaysaa Muqdisho mugdi, sababtoo ayada lagu naafeeyay Muqdisho oo nin baa ku naafeeyay kan idin shaqaynaya imika hooyadeed baa laga dilay, oo waxay ku xasuusanaysaa hooyadeed inay ku dhimatay meesha dhibaatadu ka soo gaadhina lama tago wallaahi, sababtoo waxaad ku xasuusanaysaa yacni murugaad ku xasuusanaysaa. marka yaana magaalada lagu celinin, laakiin waxaan u sheegay dawladda sharafta leh inta in wax loo qabto, inta in la saacido, inta in la garab istaago, sababtoo qorigii laydinku ilaalinayay ayaa lagu naafeeyay, idinkana sharaf idin ma aha. weli waxa meedaan qaban waa dadaashay, laakiin weli dadaal kale idin haray. inta yar hal saacido miskiinada, inta yar meesha lagaga dhacay hal saacido, shaydaanka idin ilaalinay soo qabto jeelka ku rida jeel majnuunka lugha laga jabiyo, xanuunku inta marsiyo hala marsiyo. waa rag baa Ilaahay idin ka dhigay iska dhex qabto masiibooyinka idinku dhex jira, rag baa Alla idin ka dhigay wadankiina ilaashada, rag baa Alla idin ka dhigay soo jeesta, rag baa Alla idin ka dhigay hasaxan wadankiina ilaashada. waan idin salaamayaa, waa subax wanaagsan meel kasta aad dunida ka joogtaan. khayr baan idin rajeynayaa, waqtigu wacan baan idin rajeynayaa, waqtigu ha idin samaado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.